wasiirka iyo wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa maanta kulankooda ugu horeeya la qaatay guddiga ka jawaabidda xaaladaha degdega ah ee gargaarka caafimaadka oo ay dhowaan wasaaraddu magacaawday kuwaas oo loo idmaday inay wax ka qabtaan howlaha degdega ah ee caafimaad oo ay ugu horeyso inay deegaanada laga xoreeyay argagixisada al-shabaab gaarsiiyaan adeegyo caafimaad oo kala duwan. guddiga oo ka kooban 9 xubnood ayaa waxaa guddoomiye u ah Dr. Guuleed Cabdi Jaliil waxayna mas'uuliyiinta wasaaradda isla meel dhigeen sida ay muhiim u tahay inay dardar geliyaan howlaha loo idmaday oo muhiim u ah dadka iyo dalka Soomaaliyeed maadaama lagu jiro xaalad dagaal. wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa xusay inay ku kalsoon yihiin inay guddigan wax badan ka qaban doonaan howlaha baaxadda leh oo ay u idmadeen. maanta waxaan soo imaadnay kulankii ugu horeeyay oo ay yeeshaan guddiga qaran ee caafimaadka degdega ah aan rabno in ay wax badan ka qabtaan howlaha baaxadda weyn ee hor yaalla wasaaradda caafimaadka. wasaaradda caafimaadka guddigani waxay u igmatay in ay wax muuqda ka qabtaan howlaha gurmadka caafimaad la xiriira dagaalada lagula jiro nimanka argagixisada ah ee al-shabaab meelaha maaragtay dagaalada ay ka socdaan ciidamada ku dhaawacmay in loo gurmado adeegyo caafimaad in la gaarsiiyo dhaawacyadooda maaragtay in isbitaalada la geeyo wixii u baahan dibadda in loo qaado in ay ka shaqeeyaan in dibadda loo qaado haddii loo baahdo ambalaasyo iyo daawo in loo diro meelihii la xoreeyana adeeg caafimaad in la gaarsiiyo howlahaas oo aada u baaxad weyn ahmiyadoodana leh in ay wakiil ugu noqdaan wasaaradda ayaa guddigan loo asaasay. waxay ka kooban yihiin 9 xubnood waxaa guddoomiye ka ah Dr. Guuleed Cabdi Jaliil Cali. waxaan rajaynayaa guddiga oo u badan team ka mid ah wasaaradda caafimaadka oo lagu soo xushay howlkarnimadooda iyo fircoonidooda in ay wax badan ka qaban doonaan howlaha baaxadda weyn ee hor yaalla wasaaradda caafimaadka. waxaan rajaynayaa guddiyada kale ee maaragtay ka dhisan dalka maaragtay si guud u qaabilsan arrimaha emergency-ga ah in ay kala shaqeyn doonaan ayna ku garab istaagi doonaan in ay gutaan waajibaadkooda. waxaana wada hor yaallo howlo aada u culus. dalkeenna wuxuu galayaa marxalad cusub oo deegaano badan lala xoreynayo oo adeegii caafimaad in la gaarsiiyo waajib ay nagu tahay iyo dagaallo aada u qaraar oo maaragtay dhibaato badan shacab iyo ciidanba ay kasoo gaarayaan. waxaan rabnaa marka guddigan inuu noqdo gacantii wasaaradda caafimaadka wakiil ugu noqon lahayd in howlahaas la fuliyo. waxaan rajaynaynaa madaxda qaranka oo dhan waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha la shaqeeya wasaaradda caafimaadka in ay garab istaagaan guddigan. ganacsatada Soomaaliyeed iyo ururada bulshada reedka dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay garab istaagaan guddigan oo maaragtay sidii ay u qabsan lahaayeen shaqooyinkaas hor yaalla. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.